wasaaradda arrimaha gudaha federaalka asbuucan bilowgiisii waxa ay ku ansixisay siyaasad qaran oo leedahay siyaasadda maamul daadejinta iyo federaaleynta wasaaraddu waa nala joogtaa insha Allah halkan kelimo ku yeelan doonaan ayaga ka hadli doono si waafaqsan taas maamul gobolka Banaadir waxa uu maanta halkan ku qabanayaa shir maamul daadejinta maamul daadejintaasi oo diiradda lagu saarayo ujeedkuna yahay siyaasadda guud ee federaaleynta dalka iyo si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale in awoodaha kala duwan laga soo daadejiyay heer federaal loo daadejiyay heer dawlad goboleed iyadoo ay jiraan awoodo u gaar ah dawladda federaalka haddana inta badan awoodaha la xiriiro adeegyada bulshada ee kala duwan iyo horumarinta dhaqaalaha iyo ismaamulka iyo cashuuraha oo heer dawlad goboleed ilaa heer dawlad hoose loo daadijiyo ayuu shirkeenu ku saabsan yahay waxaan diiradda ku saari doonaa fursadaha ka jira hirgelinta sida sax loo hirgeliyo nidaamka maamul daadejinta sidaas oo kale caqabadaha hor yaalla iyo in la aruuriyo talooyin la xiriira sidii markaa loo fulin lahaa markaa siyaasadda maamul daadejinta aysan noqon aysan noqon waxaa jiri doono oo halkan khudbadaha kadib kooban dhici doono dood kooban oo ay sharaf noo tahay inaan ka qayb gelinno hoggaanka nala jooga ee maamul gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka ee nala joogo mas'uuliyiinta kale halkan joogana ee kala duwan fursad u heli doonaan inay dhageystaan su'aalo weydiiyaan sidaas oo kalena ay talooyin badan ay ku biiriyaan hannaanka maamul daadejinta ujeedka ugu weyn ee maamul daadejintuna ay tahay adeegyada hagaaga iyo dhaqaalaha oo markaa kor u kaca dadkuna ay helaan xaq ah inay doortaan dadkooda heer lokaal ah ujeedka ugu weyn ee shirkeena waa ka waxaan isla joogi doonaa hadduu ilaahay rado wada qaadanaa ilaa markaa duhurtii waxaan rabaa marka inaan dhammaan uga mahad celsho ka qaybgalayaashii maashahoodii halkaasaan rabaa inaan ku soo koobo